السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي وأنا سلام يا رمضان كريم وأنيجي يوم مرلبات كم باك سمي أو صار نقضي وإلهي مهدي صديق عاد إذن كنا نبض القبطان يعني كنا نبض قبل أن مرلبات الصلاة منه صحابي وأن كل راجني بريهان محيه تدباتوين بروبلم فاميلي وحبا إسكجري حنونا إسكجري الحمد لله حدي هدي أن معركتي كسو قدبني وحاسودن وإلهي مهديس إذن كنا محيه وحنا رجيني إن عافمات إيه محيه بس براق سجنتين أصحابتي channel كي كحرن waxaan mar labaad idin ka codsanayaa asxaabe inay soo dhaweysaan mar labaad waan soo laabtay waa anigi udbahayga iyo dhagahayga wata inay soo dhaweysaan baa idin ka codsanayaa hadii alla idmo barnaamijyadii iyo waxyaalaha aad iga barteen oo qisooyinka iyo jacaylka iyo daraamooyinka iyo wixii dhiirgelinta ah baan rabaa inaan mar labaad soo rigaal celiyo inaad soo dhaweysaan baa idin rajaynayaa channelka inaad ma aragtay soo booqataan subscribe like share inaad ma aragtay ila wadaagtaan baan idin ka codsanayaa دي الله إدمو برنامج شديني أيان دب الربعنا إذا كوب بالله دي إله إدمو صون كوب نقدر ماضي وانسي مع سلامين هنا دي الله إدمو مركب حد كعد سنة أنا دمر لبعض سكرايب عد ما عرفتي يقول قفتان أو ذا وحب دب إيجال لعبنا نذكر جينا يا يسود ويسان مر لبعض عد بعد ما عرفتي أن يدين سلام يا أنت channel كي كحرن يا my family وحد نسينا يا one love بان نسينا يا أنت كلو ما عرفتي هاد كتب نقصو بيريسنا وحد الله welcome وإذا سود وينيا وإذا كاسه هذا القناة كينا ما عرفتي كلا كعي أو بريها نوتي في بالفرد على كعي أو هل سود وين مرلبات عاد بندين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حان جعلستي إن أن إدين سو قد بيو قيبتي لبعض قصدي نو سوق عيد بيسي برقد يبيرلو قيبتي لبعض وقبل إن maanta aan idin dhameystiro maadaama dad badan oo iga xiran ay iga codsadeen caasho inuu soo gudbiyo qisadaas aad baan uga helnay maanta waxaan jeclaystay inaan qaybtii labaad maxay ahayd qisadii barqad beerlo aan halka idin kugu soo gudbiyo asxaabay qisadu waxay inoo mareysay iyadoo maxay ahayd wiilkii barqad ahaa loo yimid isagoo meeshii foornadu ka shaqeynay loogu yimid oo la yiri barqado war ma ogtahay maxay ahayd gabadhi beerlo la ahayd waa la soo doontay waa la galbinayaa halkaas iyo magaalada berbera ayaa loo galbinayaa marka niyahoodee la soco hawshaas adigu jacayl waxaad haysaa qaleyl ah meeshaan waxaa yimid dad ma aragtay isku level aniyaho awalba gabadhaas isku level maydan ahayn maxay ahayd halkaasuu ku suuxay bay qisadu noo maraysay wiilkii barqad ahaa arrintu waxay ku noqotay arrin aad u adag uusan u qaadan karin uu xamil waayay يعني جعل قبله وخبي كليه إنه ما أردت إسحكميه أو يراهد أرنتان نيه بالنين إسكتنيجو إسكتكيو قبر محيط أقول بفمل كده العقليين أدو فمل كان فمل إسكسبوله مساكينات كسو جداي بالترتيب كحتى وما أردت أرنتي وسمين كريواي ويلك برقدها وحنون صديق قندا قبتي شقدي وكم فديستي gurigoodii iska joogay reerkoodii waxay leeyihiin wiilka maxaa ku dhacay hargab miyaa haya calool xanuun miyaa haya waxa aad u kale de Soomaaliland ay jacaylka xanuunkiisa ma naqaano markaas wuxuu leeyahay mayo iska xanuunsanahay wiilka adiga qandhada siday u haysay adiga muddo wuxuu jiifay 2 week asagoon kor u kicin baa gabadhii waxa loo soo sheegay arrintii gabadhii beerlo ahayd baa loo gudbiyay kulli waa taqaana Soomaali daris iyo wax isku gudbiya waa loo tagay waxa dhanaa beerlo war ma ogtahay maya wiilka barqad ahaa baryahan ma shaqo tago meeshii foornadii ahayd ma tago iska dhaaf school dhalinyaro lama sheekaysto wiilka inuu dhintay inuu nool yahay wax sheega lama hayo adiga waxa waraaqo iyo arag iyo kulan iyo wax ma sameysaan gabadhu way yaabtay waaga ku bari maya tira aniga ma arkin baryahan suuqa meelahaasan ka fiirfiirin jiray aan ugu jeedin marka kale ayada laftigeeda dareen jacayl ku jira marka laakiin inkastoo aysan gabar dumarkeena Soomaaliyeed xishood baa Ilaahay ku manaysta ogtihiin meelahaas ka qoraansan jirtay foornada isagoo shaqeynaya iyo isagoo rootiga laga iibsanayo waxa dadka siinay dadka customerka bay meelahaas ka wiidayn jirtay marka waxay tirnaa baryahan ma arag aniga laftigeega maxaa dhacay war wiilka lama hayee بس ما حكى قال هذه قف ما عرفت له صوت دونتي ومرده ولا قلبنا يو الروس كده دع ربابته إسكاب ده وحسن أنكو سوقنا ما بقى سمحين يأكله قبله صاحبيين أو شاركوا ذاها
gabadhii markii arrinta sidaa maqashay arooskuna soo dhawaaday bay waxay tiri alleelehe waa inaan ka war doonaa wiilka barqad ah waxa ku dhacay xaalkiisa maadaama anigu reerkayga ay ninkaan siinayaan isagana aan maxay ahayd qalbiga ka rabo balse hadda arrin igu xoog badan ay timid bal aan soo arko ku quusto intaan la ihooynin halkaa iyo berber la ii kaxayna bal aan soo arka hal mar gabadhii way soo dhuumatay baar loola ahayd habeenada ka mid ah xilliga fiidkii oo mugdiga dadka gabdho wax shoonayaan marka halkaas qisadii markay halkaa marayso asxaabey qaybta qisadu waa dheer tahay dee ma dhamayn karo anu hal mar ma dhamayn karo qaybta saddexaad kala soco channelkan isaga ah haddii aad nagu cusub tahay subscribe like share waa xaggeena wixii soo jeedinna waa xaggeyga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu